الصومالية مضمانة معلنك الصومالية وحلي قام كشقي الظروف هذا الله سبحانه وتعالى دتك الله سبحانه وتعالى دتك وحو بر وحي سنقون لهين علمك إلهي دتك بر وحاذو يربو إلهي كسي علمك إنتي سصارتي ودنا الله سبحانه وتعالى يا ملكي قيد إسكالي وحاسي حقيقة كرتا إن أقومت مع الله عندنا يسم بركري وحاتو ساوى نكسن مدى ونقكر الرسول كان محمد صلى الله عليه وسلم مركي وحي وكسو دقي إنه جبريل وها براء وقرآن كتو الأخرين إنك هدي إنه ما يبرشوين الصوماليين معلنك قيمة وين بونوغو فديا أو حتى أنت نسكولو دي لسو آدين كور معلنك دوكسيغا نوغو معلنك دوكسيغا قرآنك والدين تأيدتك بديغانك بقدرين أدوين أي وهيان marka cunugga quraanka dhameeyo waxa waalidka macalinka siin jiray geel qaalin geel ah iyagoo qofkii geel la siiyo ay dadku u arkayeen inuu yahay qof xagal oo deegaankaas macno weyn ku fadhiya macalinka Soomaaliyeed wuxuu waxbarida carruurta Soomaaliyeed gacanta ku soo hayay muddo aad u fog iyo marxalado kala duwan oo qaarkood aad u dhibadan yihiin sida badanaa macalinka Soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa mushaar aad u yar oo ma la arkin macalin mushaarka uu qaato ku dhistay daaro ama hanti kale ka tabcaday laakiin waxa kaliya oo hawshaas dahabka oo qiimaha badan oo ku dheefaya waxay tahay magac sharaf ixtiraam iyo meel kasta uu tagaba inuu macalinka fadhiga looga istaago waxa ammaan mudan macallimiintii Soomaaliyeed oo isxilqaamay markii xukuumadii burburtay dugsiyada iyo jaamacadaha soo nooleeyay oo ka dhidiyay waxbarashada inay carruurtu Soomaaliyeed ay xasilooni darada iyo kala dambeyn la'aanta ku dhashayna ay ku eegan waayeen inay ku barbaaraan jahli iyo aqoon la'aan dadaalka miraha dhalay macallimiintii sameeyay markii burburkii dalka ka dhacay kadib waa sida roob lagu dogsaday waayo haddii qofka kale ku eegan lahaa gacmahana la iskor saaran lahaa dhalinyaro aad u fara badan oo maanta haysta fursado maysan heli lahayn iskuulada iyo jaamacada kama aysan soo bixi lahayn sida maanta loo cayntana looma cayman lahayn dalka oo dhan wuxuu noqon lahaa qof xabad rida iyo mid ku soo rida macallimiinta dad